waxyaalaha keenaya haweenku guurka inay ka daahaan asbaabaha ay leedahay kow waxaa ka ah الدراسة النظامية وحلا يراهدو وقفكي مشغول لوغا دغاي gabadhii waxay dhamaysay iskuulkii markay dhamaysay guur mar hore bay gaartay iyadoo iskuulkii aan dhamayn bay gaartay ma aynan guursanin waxa laga dhaadhiciyay ama saaxiibadeed ama waalidkeed ka dhaadhiciyeen ama ayaduba iska dhaadhicisay ilaa jaamacad aad dhamaysid ha guursanin jaamacaddii markay dhamaysay ayaa waxa la yiri kuwii ka horeeyo jaamacadda dhameeyay master bay raadiyeen aduguna waxa weeyaa ilaa master aa qaadatid ha guursanin muddo kale ayay ka sii daahday masterkii markay qaadatay ayaa waxa la yiri wax ka sareeya ay jira waa ina PhD soo qaadatid doctoraa soo heshid nolosha rasmiga ah markaas gaari kartaa waxbarashada rasmiga ah markaas dhamaysay markaas mar labaad u tifaaxaydatay da'da ay ku soo dhamaysay iyo waxa weeyaan iyo xilliga ay ku soo aadayna waa xilli guurkii xilligii loogu talagalay ay ka baxday oo in badan ay dhaaftay weeye markaasna caqabad kala hortaala nin aan sideedoo kale mustawahaas aan joogin waxa weeyaan uma qalmo mana ku qanacsana nafteedu in ay guursato ninkii mustawahaas oo kale ahaana waxa laga yaabaa xaas iyo laba inuu leeyahay ayadii marka waxay rabtaa nin sideedoo kale shahaadada haysta waxa weeyaan xareerna aan lahayn oo waxa weeyaan aan xaasas kale lahayn ayay rabtaa taasina waxay noqotay in la arkay shay culus ayay noqotay caqabada kale waxa weeyaan oo ayaduna jirta galaaga iyo sicir bararka ku dhacay guurkii hadii ay gabadhii hesho wiil wanaagsan oo akhlaaq leh oo diin leh oo wanaagsan haday hesho ayaduna diyaar ay tahay halkan waxa yaala caqabad kale hortaagan caqabadaasi waalidku qayb ka yihiin hooyooyinka iyo aabayaalku qayb ka yihiin waliba dhinaca hooyooyinka gaar ahaan gabdhuhuna qayb ka yihiin wiilkii waxa lagu xirahayaa shuruud guurkan inuu u baahan yahay miisaaniyad iyo hanti aad u fara badan arooskeedu kama dhici karo meel aan hotel ahayn guri kama dhici karo arooskeeda waa in intaas oo qarash la geliyaa boqolaal ba ka soo qayb galahaya aqal kala dhigahayo waa aqal qaali ah dahabka loo gadahayo caa'ilada iyo qoyska laga doonayo lacagta iyo dhaqaalaha la geynahayo intaas oo qarash ah oo wiilkan dhalinyarada ah ee cafiifka ee dhowrsoon uunan awoodin wuu shaqaystaa 300 400 oo dollar oo mushaaruhu qaataa intaan haduu guursado waxa weeyaan haduu $1,000 iyo $2,000 ku guursado biilkiisa waa haystaa